maanta waa maalinka caalamiga ee dhalinyarada waa madashii dhalinyarada sanad walba bisha August 12keeda ayaa la xusaa maalinka dhalinyarada adduunka maalinka dhalinyarada dalka iyo maalinka dhalinyarada deegaanka marka si guud maadaama ay tahay madal loogu talagalay dhalinyarada waxa loogu talagalay in la xuso qiyamka iyo doorka dhalinyaradu ku leeyihiin arrimaha bulshada siyaasadda iyo dhaqaalaha marka taas hogaaminta heerarkeeda kala duwan iyo dhalinyarada si guud waxa loogu talagalay in maanta lagu xuso maalinkan loo asteeyay dhalinyarada iyadoo loogu talagalay halkudhag caalami ah mowduucyo kala duwan iyo himilooyin guud iyadoo xaalado kala duwan ay ku sugan yihiin bulshada qaybeeda kala duwan haddana himilo guud oo aan hiigsanayna jirta marka taas aynu uga mid dhalino waa inaynu fikirkeena iyo aragtideena midayno laguna asteeyo lagana qayb qaato arrimaha dhaqaalaha horumarka iyo arrimaha bulshada oo ay ugu horeeyaan hawlaha dabilaha xagaaga oo aynu waqtigeedii ku jirno isla markaana ay dhalinyaradu heerarkeeda kala duwan ay ka shaqeynayaan arrimahaas iyada oo aad ogtihiin barnaamijka dhaxalreebka cagaaran in ahmiyad gaar ah la siiyay badbaadinta hooyooyinka iyo dadka u baahan dhiigga iyo sidoo kale in la caawiyo danyarta dadkeeda kala duwan loona dhiso guryo la dayactiro guryo barnaamijyada waaweyn ee xisbigeenu qaatay bay ka mid yihiin isla markaana ahmiyad gaar ah la siiyay xilligeedina lagu jiro marka si guud dhalinyarada waxaan ku boorinayaa inay ka qayb qaataan arrimahaas bilaa xagaaga loogu talagalay iyadoo sanadka oo dhan ay socon doonaan run ahaantii waa madal dhalinyaradu iska leedahay sanad kasta madashan waxaa lagu gorfeeyaa halku dhig looga dhigaa kulba xaaladaha taagan sanadkan xaalado kala duwan iyo himilo guud dhalinyarada qaar baa arday ah oo qalinkii iyo waxbarashada la tacaalaya qaar baa madrasada dhiga oo macallimiin ah qaar baa ciidan oo furinta jooga oo dalkii iyo deegaankiiba difaacaya dad baa hooyadii umuleysay iyo ilmihii yaraa kala badbaadinaya dad baa beeraha qodaya oo waxaan cuni lahayn noo soo saaraya laakiin himilo guud baan leenahay waa inaan prosperity-ga ama barwaaqada la teegsanayo aan ka midho dhalinyo si aan u gaari lahayn inagoo gacmaha is haysano aynu ku dadaalo weeyaan muwaaqarada kala duwan iyo dhalinyarada anoo fursaddan kaga faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan dardaaran yar dhanka samafalka inaan ka idhaahdo waxaad ogtihiin muwaaqaradu inay 12 bilood iyo 24 hours inay ka shaqeynayaan hawlaha samafalka iyagoon dana gaara ka eegaynin resource ku raadinaynin marka dhalinyarada si guud inaad ku soo dhawaataan organizationada kana shaqeysaan hawlaha samafalka